saan u tiriyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo sidan u dhacaysa waxaan oranaysaa haliye dhiiga loo shubo halistii halbowlaha daraadiina loo huro hanka gaaban aan arag ku hadaaqa uu soo rabo meel hanaan wacan halgamaa dalkiisa u hoggaansan weeyaan ninka hooygu jecel yahay cid kastoo fanaaniba inaga iba nagu tahay amnigiya aqoontuba walaba aan beernaba ina mari hargeysay meel sare aan aadne kulan haboon daawad ilaahantii meel waliba mid walba naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka maasiimada daalo oo toddobaadkii hal mar aad ka daawateen telefishinka Star barnaamijka waxa idin daadiyay aniga Nadiir Maxamed Axmed hadaba daawadeel barnaamijka waxa maanta martii inooga mid kamid ah halaburada gudaha magaalada Hargeysa Halaabur Cabdiqaadir Catoosh in ugu horeyn walaal ku soo dhaweynaa telefishinka wana kaaga mahad celinaa sida qurux badan waqtigaaga nagu soo hortay waan dhawahay walaal aad iyo aad baad maasantay adiga iyo TV-gaba aad baan idin salaamayaa waan ku dhawahay wala markale ku soo dhaweynaa barnaamijkan u guda gali doona bas intina barnaamijka u guda gal adiga waqtigu si doona ugu furfuri doona maansaad nagu tala gashay aad baad maasantay walaal waxaan nagu bilaabi doonaa maansaan u tiriyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo sidan u dhacaysa waxaan oranaysaa haliye dhiiga loo shubo halistii halbowlaha daraadiina loo huro hanka gaaban aan arag ku hadaaqa uu soo rabo meel hanaan wacan halgamaa dalkiisa u hoggaansan weeyaan ninka hooygu jecel yahay wadnayaal hareer quban iyo hoog la soo maray ayuu maalin joogo halgamayay keligii hay'aduba marbay tahay ciil hooga biyeemu oran ka ciishood intuu cadowgu nool yahay haybtiisu waa qaran iyo hibo la doorbido hurgufkii colaadeed iyo hawshu noo galay dadku may hayaameen miyay soo dhageystaan hawshii la soo maray isagoo halgamay buu hadda noo hoggaanshaa nolol hay'ad aan arag dadka hawsha aan arag waxay maanta leeyihiin handaraab naga tago nin adkaysi dheer lihi jabhad soo ahaan jiray weli uu halgamaya adna waad hagaagiyay sharci bara inta dhima ma jiraan nin heli kara hubku gacanta saariyo halku shiish ku dhigi jiray hambaliyaan ku leenahay adiga iyo dadkaagu nin hareerihiisa ka hadaaqayo hooy isku noqo intaad hadal nin haweenku jecel yihiin oo raba hanaan dheer ha ku odhan dibnaha qaar anigaa ku doorto ku horay codkayga dalku ku tabayaa mar labaadna daadihi deer xumaanta diidiyo waxa tahay nin diin jecel da'yartuna dhammaanteed aabba soo dhawoobay saacbada ku leeyahay ducufkiya nin liita ma yaqaano dawge muxuu libinta kuu qiri ducufkiya nin liita ma yaqaano dawge muxuu libinta kuu qori ilaan daacad maahe dal hoggaamintiisana nin dalcada ka soo dhacay ayaa dacar ka dhigi kara imisuu dabciil tiray imisuu nin hoog baday oo dalkiisu iib galay ku hoggaanshay nabadda dacallada dalkaygana daacigaa isgaadho roobkaa ku da'ayee ninka diidan taasoo cilaajada ku soo dego duca qaba nin door xulan oo diinta hoos yimid dadku maanta doorteen dafcad qalinka barato xilka daadihiisa aqoonsaday ayaa tahay intaan kaga soo laabana daawadayaal in su'aashaasi iyo maasada uu nagu furay su'aalaha tooska kugu talagalay guda gali doona horta waxa lagu yiraahdaa Catoosh magacan Catoosh muxuu kugu baxay tamar labaad aad baad maasantay walaal magacan Catoosh wuxuu igu dhigay 2016 magacaasina wuxuu igu baxay waxaan sameyn jiray ama isku dayi jiray saxaafadda inaan barto habka BBC loo sii daayo miisigadeeda intaan googooyo ayaan isku dulqa qaban jiray marka saadirteed ayaa lagu magac daray suxufiga weyn Catoosh ee BBC ka shaqeeya magaciisa asqaar asxaabta kamida ayay bixiyay magaciina saas igu dhigay marka inta ka imano waxaad nala wadaagtaa gabigii ama maasidii ugu horeysay ee sameysay waqtigii aad suugaanta ku soo biirtay iyo maansida laftirkeyga dad xasuustay laftirkeyga nala wadaag su'aasha kale ee maasidii kugu horeysay xil ma tirisay horta maansadii ugu horeysay 2018 ayaan maansa tiriyay maansaduna waxay ahayd maansa iskaabula oo ka waramaysa dareenka dhalinyarta maanta haysata waxayna ahayd kaliinimo ay matalaysay maansadu marka qof keligii jiifa oo magaranaysa keligii soo kaca keligii wax qabsada ay ka waramaysay maansadu marka adigu waa dareen iskaabulo ay maansaasi ka waramaysaa maansaas ay ugu horeysay gabayadeeda aan ku bilaabo maasaduna waxay oranaysaa inaad keliga ahaato inaad weelkaaga maydho inaad gogashaada laabto inaad keligaaba jiifto iskaabulaad ahaato dareenkaaguna xumaado markaad aragtaba qoftiisa ku sita fitistaa la sheegay yani duqaanada magaalada mara
ku sita fitistaa la sheego maxay kelinimadu ciishay wasabkuna uu harbeelay jacayl beena uu abuuray jeebkiisuna uu madhnaaday riyadiisuna ay fogaatay isniin caashaqii bilaabay jimcii uu garanba waayey saldhigna uu agseexday fooldhaqiina garanba waayey qudhiisoo meelba taagan in yar lagu yidhi fadhiiso quraansaar loogu yeedhay inuu doob yahay caddaatay ninkii xaas lana jeclaaday inuu inantiisa siiyo inantiina weyba diiday inay iska daa jacayle in yarba ay ag joogto doobkiina uuba yaabay intuu cararuu jeclaaday inuu kaba taga adduunka intuu dhismahaba ka qaatay bidhi waayirka wareega ayuu daldalaad jeclaaday maansidaas iskaablada aan ka soo laabano inta badan marka aad maasooyinka ama suugaanta aad tirinayso maxay u badan tahay baan oran karnaa ama inta badan ka gabayda horta aad baad mahadsantahay walaal maasooyinkayga waxa ugu badan horta jacayl maaha calaacal maaha maasooyinkaygu waxay ka hadlayaan wacyigelinta bulshada runtii maasooyinkayga waxa ugu badan wacyigelinta cabdiqaadir waxaa tiri maasooyinkayga inta badan dhiirigelintay u badan yihiin agoonada inta badan waxay ka sameeyaan maasooyinka dhinacaasi jacaylkay ka sameeyaan bal aduma ka sameysay wax maansa ah haddii aad samaysay laftarkeyga maansadaas iyada laftarkeyga nala wadaag walaal aad baad u mahadsantay runtii maanso ayaa jirta kooban oo ma garanaysa aan iyadoo sameeyey inaan hadiyo leedhaa oo beri waxaad naga dhexayn jiray imakana aan ma garanaysa kala daboolanay marka waxay odhanaysaa dhabtii caashiq daran iyo jacaylaan dhammaan baad dhaqsa iigu beerto hadiye ay dhaayo kumaan arag dhegna weli kumay maqal midaan adiga kuu dhigo dhan kastaba u qaado adaa dhiigga raaco xididada dhex qaadoo dhabtii waan ku jecelahay hadiyey dhankaaga ila dhidib jacaylko may dhiigaygii baa tahay may dhuuxaybigaa tahay dhinacayga joogoo mirir hayga dheeraan duni waxaynu joognaa labadii isdoortaba lagu kala dilaayee yaan laysku keendirin oonnayla kala dilin hadiyaayi daaraay dejiyaayi deeqaay hadiyaayi daaraay dejiyaayi deeqaay dabkii naftaydii baa tahay maankaygii baa tahay waxaa jira dad xaasida loo diray xumaatida kala dila lamaanaha dumarkaba dhammaantood adaan kaa dhex doortee hadiyaay kaa dhex doortee markaa way iska koobantay saasna u dhacayso awan inta badan bal ka waran ereygan adigu maxay hayde Soomaaliga sidee isku tii macnaheedu adeegsiga Soomaaliga ereyada Soomaaliga markaan ka imano in waxa aragtay dhalinyarteen iyagoo aan inta badan majority-ga aan siinin muhiimadda aan siinin Soomaaliga oo ereyo ka dib maxay hayde luqado kale aad u adeegsanaya oo maxay tahay in Soomaalidan waxay Chinese ka siisaa ama awood ugu badan siisaa luqadaha qalaad balka war adigu Soomaaliga si isku tiin marka laga yimaado Soomaaliga dhalinyartaasi iyo Soomaalidan kale inta adeegsanaysa halka maxaad marnaysaa aad baad u mahadsantahay walaal mar labaad horta waxa jirta dhalinyarteenu horta waxa jirta 100% waxay ka lumeen luqadeeni Soomaaliga ahayd anigu horta luqada Soomaaliga mooyaane maadada Ingiriiska iskuma fiicin waxa jira waxaan halkan aan dardaaran u marinayaa dhalinyarta reer Somaliland inay runtii ma garanaysaa luqadooda hooyo ay dib ugu soo noqdaan luqadan Ingiriisku runtii wuxuu bay xumaysaa waxa ma hagaajiso balse haddaad luqadaada ku faanto oo Soomaaligaagu intuu si kala baxaad barato shaqal walba halku marayaad barato runtii waxay ku noqonaysaa cilmi dheer oo ma garanaysaa aad dadkana ula tagi karto marka waxaan leeyahay 100% xagga Soomaaliga ha loo soo noqdo cabdiqaadir waxaan ku sii siqnaa runtii gabagabadii barnaamijka maalimada kugu talagalnay wareysiga koobnaan kula yeelan intaas oo ku ekaan doona balse inta barnaamijka soo gabagabin aniga daawadayaasha waxaan jecelahay in maanso aad nagu sii gabagabayso bismillaahir rahmaanir rahiim walaal mar saddexaad aad baad u maasantay waxaan noo soo qaban doonaa maanso aan Hargeysa u tiriyay waxayna oranaysaa maansadu adigaan Hargeysay kugu hoos barbaaro aayahayga noloshiyo cindigayga kuma arag ammaantaada mooye wax ku dhibeynaad heli anigana sidaydaba weli kaama aan tegin ilaa aan xabaal galo ismalihi Hargeysaad u daldhaafi dibad kale aamiinta ducaduna waa waajibkaagee haysodhanin muu dhalan nimaan dhiigga ku hurin anigana Hargeysay waxaad iila midab tahay baradii aqoontiyo ayaheena noloshaba arrimeena noloshuna waa inaan ku dhowrnaa dhan kastuu yimaadana cadowgeenna aasnaa may dhammaanin guushii aan ku horseednee waxa jira dad aan rabin hannaankaad ku socotiyo hiigsigaa tag leedahay cid kastoo fanaaniba innagayba nagu tahay amnigiiyo aqoontuba waa laba aan beernaba ina mari Hargeysay meel sare aan aadne
inamari hargeysaay meel sare aan aadnee ninka sii hor joogow ka hor baydhintaad dhiman in yar baaban kuu digay asaxaanna kuu galay hargeysaay socdaaloo samadaa dusheediyo xidigaha moogaan muqwanaag hargeysaay gurigii aqoontaay ila nolol wanaagsani waxay keenaysaa uun cadow aan la garanayn wanaaggaaba naga dhigay dad hoggaansho diintaa hargeysaay dadkaa jecel wanaaggaaga oo qudha naxdin bay ka dheeraan iyo madowga noloshaba weli waan xasuusnahay xasuuqii dadkaygii loo goystay berigii anigoo ogsoontaa ayar baan la jiifaa anigoo ogsoontaa ayaa nabad ku baaqaa cid kastoo timaadaa anigoo ogsoontaa ayaan soo dhoweeyaa cid kastoo timaadaba guud ahaan iyo gebahaan waxaan daawaday intaas idinku soo gabagabeynaya barnaamijka maalmada maanta idinku talagalnay intaan ku kulmi doono kulankan kulanka xiga waxaan idinkaga sii tegaynaa sida assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.